بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan doonayaa inaan halkan ka salaamo dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan dunida dacaladeeda waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ilaahay ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay abaaraha ina haysta inaga soo jabiyo oo uu roobka isaga raxmadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala daqiiqado ayuu xaalad adag xaalad wanaagsan ku bedelaa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay raxmad ay noo shubo oo raxmad ay nasiiyo dadka soo qaboojiyo taasi waa talabaad waxaan leeyahay waxaan doonayaa inaan maanta halkan shirkan waxaan idinku yeeray shirkan jaraa'id u qabtay waa 3 qodob oo kaliya mid waxa weeyaan waxaan la hadlayaa dawladda hoose khaasatan maayarkan la hadlayaa midna waxaan la hadlayaa xukuumadda midna shacabka Soomaaliland ayaan dirayaa baaqan waxa weeyaan waxaan la hadlayaa maayarka waxa su'aashan weydiinaya maayarka waxa weeyaan wadada madaarku ma wada qabiil ba mise waa wada qaran tan maayarka weydiinaya waa taas maayarku waxa jirta in wadadan waa wada halbowle qaran ah waa wada Soomaaliland oo dhan ka dhaxaysa waa waxa weeyaan first expression ka dalka Soomaaliland laga soo galiyo dadka oo dhan bay wadadani ka dhaxaysa dawladda marta madaxweynaha mara wasiirada mara deeq-bixiyayaasha soo mara qof kastaaba wuxuu ka soo tusaale qaadanaya xukuumadda xukuumaysa dalka waxay ka soo tusaale qaadanaysaa dadka imanaya ee caalamku daaraha dadku dhisteen ma eegayaan laakiin wax qabadka dawladda ay eegayaan marka wadadani waa halbowlaha xukuumadda ayayna waajibkeedu saarayay inay dhamayso mid aan u sheegay maayarka waxa weeyaan marka laamidan dadka ganacsadaha ee ka shaqeysta ee laamida eegaya cashuurta waxa laga qaaday laban laab waxaana loo ballan qaaday in wadada la dhameynayo dadkaas waxay ka mid yihiin dadka cashuurta bixiya ganacsatadaasi waliba hadii loo baahdana waa qaaraan bixiyayaal oo qaaraanka bixiya waxa laakiin ayaan darro qaranka Soomaaliland ku habsatay waliba especially qaybta Maroodijeex ku habsatay waxa weeyaan maayarkii dalku marka uu yiri wadadan dadka wadada laamida ku ganacsada waa in ay bixiyaan kharash lacag waa inay bixiyaan waxaan aad u weydiinayaa oo su'aasheedu tahay maayarku hadii aanu qorshaba ka haysan wadadan uu ku dhameeyo sababta uu bilaabay horta taani waan weydiinayaa waayo wax markaad maayar tahay hadii aanad sideed u bilaabi kartaa project inta leeg hadii aanu waxba uga diyaarsanayn taasina waa ayaan darro kale marka waxaan leeyahay oo aan maayarka khaasatan leeyahay hadii ay noqotay danito qabiil oo lagu campaign gareynayo amba wadada dooro amba wadani dooro ma aha laba wax oo la isbarbar dhigi karo waxaan leeyahay Soomaaliland waxaan leeyahay maayar saddex intii aad imika hayseen xukuumadda aad hayseen dawladda hoose 4 wado oo bridge-ku ama doox baro oo kamida Maxamed Mooge Maxamuud Haybe Axmed Dagax 31 May intuba ma dhisna intaba waa la bilaabay midna ma dhameystirna waxaan la yaabanahay oo aan aad u la yaabanahay markaad eegto Soomaaliland ee bridge-ka saa loo baro waa biyo la'aan waa wada xumo waa wada la'aan waxa aad iyo aad aniga ila yaabtay aan la yaabay waxa weeyaan dawladda Israa'iil la yiraahdo 24 saacadood way bam garaysaa Falastiin haddana iyada biyaha supply garaysa iyada wadooyinka samaysa iyada dhakhaatiirta gudbi bixisa iyada raashinka bixisa Israa'iil oo og inay Falastiin soo shiidaysa markii shiido ay shiidka dhamayso og biyaha ku meedhanayeen iyagu sii deynayeen iyagoo og dhididkan iyo dhibaatadan in iyaga ku waxyeeleeyeen ay hadana biyaha u diyaar gareeyeen waxaan leeyahay in ay isbedelaan oo isbedel la keeno oo dadka iyo la kala saaro mujtamaca ku nool koonfurta Hargeysa ilaa iyo inta wadada soo tiriyay bridge-ka marka la baro dhinacaas waxaad moodaa in xayiraad gaar ah saarantay waxaan leeyahay dadkan waa cashuur bixiyaan waxaan leeyahay waa muwaadiniin Soomaaliland maayarka waxaan leeyahay bal dib isugu noqo oo arintaasi haday adiga kula qurux badan tahay adigoo maayara adiga 25 kaaga xildhibaan inaanay arintani ahayn arin caalamka iyo bini'aadamka ka farxinaysa waxa kale oo aan maayarka leeyahay hadii maayar aad leedahay daamirkii baa dhamaaday
oo imika wararku nagu soo gaadhay inaad leedahay daamirkii baa dhammaaday qalabkuna miyuu dhaxamooday ma dhaxan baa meesha ku laysan maxaad qalabka u guratay waxaan anigu aaminsanahay wax wal oo bilaadanka oo loo qabanayo adigu waxa tahay maayar qaran ma tiid maayar qabiil waxa tahay maayar qaran ma tiid maayar xusbi waa in aad siyaasad ka madax banaanaato oo laamidaad meel ka dhistay laamida meesheedii ka dhisto afarta koonaba cashuurta way ka timaadaa taa maayarkaan leeyahay midna maayarka waxaan leeyahay guryahayaga aad tiri ee laamida ku jeeda ee value-goodu maanta yahay $700,000 ee aad tiri waa 20,000 guryihiinii ahaa markaan laamida sameeyey 50,000 bay idin noqonayaan waad mahadsantahay baan ku leeyahay 30,000 dhabarkaaga ku sidee tuurta ku sidee adigu ee adigu aad jeebadaada istirmala waad ka soo saartay la noqon baan ku leeyahay waad la noqon kartaa guryahayguna 20,000 ay noo ahaanayaan taas waxaan ku leeyahay maayarka waa ayaan daro waa guul daro soo hoyatay maroodi jeex waxaan leeyahay maayarka shaqadaada iyo waajibaadkaaga iyo duty-gaaga waa inaad ogaatid taasi waa tamaayarka halkaasaan tamaayarka kaga baxay mid kale jirta waxaan la hadlayaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye is xambaarsan waxaad moodaa in dadkii jahawareer lagu riday hal qodob baan doonayaa inaan ka hadlo oo aan kala hadlo xisbiga muxaafidka waxay yidhaahdeen xamar ayaa wadani ku socdaa waxay yidhaahdeen xamar ayaa lagula shiray Nairobi waxaan oran karaa waa ludicrous allegations ma aha wax aqliga bilaadanka saliimka ku xisaabtami karo wax nin weyn oo qof weyn inta meel soo taago oo ku hadli karana ma aha waxaan bulshada Soomaaliland iyo xisbiga xasuusinaya xisbigii u horeeyay ee furay dialogue in lala hadlo Soomaaliya wuxuu ahaa xisbiga kulmiye in xisbigaas ayuu ahaa in lala hadlo Soomaaliya ee lala fariistay 2002 alifkii ee lagu la fariistay magaalada London wuxuu ahaa xisbiga kulmiye good ودرجة يسوي كرديين ما كديدي لكن ما أنت وحن هانو جوب شوقياش negotiation مركي لجهل لي سومالي لان دستور كذا مية كدرتي رئيس البرلمان كو لما هالدي كرقف ان السومالوينا رئيس البرلمان كو لما وانكي صدح هذا دلك الحكومي قف حسبي كأه قدومية اسمه أركر الشرعي جيد constitution كسومالي لان محاكمات مصاري كرو وحن ليها oo aan leeyahay qofka bilaadanka horta marka aad dad la hadlayso ee imanaysid stage hamoodin in aad la hadlayso qofka aad u jawaabaysid Somaliland Soomaali oo dhan inta af Soomaaliga ku hadasha way ku dhageysanaysaa marka waxaan qofka bilaadanki waa in uu ogaado horta waxan ma wax soconaya ba mise waa waxa soconay filimkan ay imika kulmiye wada 1994 aktaradii matalayay ayaa haddana imika si kala u dhigay waxaan leeyahay siyaasadda waa la isla bartay waxaan leeyahay kubadda waa la isla bartay war maanta golaha saxiix waxa lagu dagaalamayaa waxa weeyaan siyaasad waxa lagu dagaalamayaa waa qalin waxa lagu hadlayaa waa saxaafad waxa weeyaan dadka bilaadanka ee mujtamaca ay daawanaya inaydaan uqdad iyo xumaan laga guuray aydan dib u soo rarin waxa kale oo xukuumadda xasuusinaya iyo xisbigaba inta ku mashquulshantiin dad baa diyaarad aan intaan u raacnay investigate garaynayna inay sarkeen magaalada lagu dhaahdo Southern Sudan xorriyadda waxa siiyay waxa weeyaan Sudan ma isin caalamku Soomaaliyeed waxa inaga dhaxeeyaa waxa weeyaan 26 sano iska daba laalaadna iyagu ilaa ay inaga go'aana go'imayno waxa weeyaan marka in aynu la hadallo oo iyaguna wadankooda iyo dawladooda dhistaan inaguna teena aynu dhisana ayaa muhiim ah wada hadalkuna waaba idinkii anagoo dumar ah bay noo fureen in aanu la hadallo ما قرأتي أو شيء واحد شري كرا أو أوران كرا ما هل كرتان وأي حرق قاعدين كفرتين ما حرق كرتان إذن كافرين دايلوجن إذن كان استمعي وحلا يحس بيجا أنت أكون مشغول سنتين قفبة ديارات أنا صوبارنا أي قفبة هبل الله الله مدتك أتجي إن عدتك عبارها هيان هيدا عالم كدق بحياش الراشن ويديان وشبات كيدوك جودن ويدين قتي أي تالذي هو تاو بدلسان waxaan leeyahay on xisbiga leeyahay on xukuumadda leeyahay dadka abaar baa haysta abaar dheeraatay baa haysta jiilal baa maanta kawsaday oo kow ah waxaan ka codsanayaa hadii aad deeq u soo weydin caalamka oo dekada berbera maraakiibta raashinka iyo cuntadu istaba xiri weydin waxaan idin ka codsanayaa in aad dadka shacabka u naxdaan oo bariiska iyo sonkorta iyo daqiiqda iyo saliidda iyo shaah madow waxyaalaha necessity-ga bilaadanka u ah in aad
cashuurta ka joojisaan bal haddaydan wax kala qaban karin bal cashuurta ka joojiya si dadka danyarta sixirka looga jabiyo bal waxaan idinka codsanaynaa cashuurta oo dadkan aad ku looltamaysaan ee codka weydiinaysaan bal horta iyaydun cod weydiisan iyaydun ku tartami dadkiibu gaajay u dhimanayaan waxaan ka codsanayaa war inaad dadka eegtaan oo hoos u eegtaan oo rabbiga ilaaha idin abuurtay casaawajallaa ka cabsataan qof waliba wuxuu wataa gaari 70 grana oo $70,000 buu wataa ودتك عشورتودي ما هو حشقيستين مركا وحنا دلله هاي دتك هاللون نحو ودتك هلا إيجو تاسنا وحنا كجبا حياة حكومة تشعب كين نقطي شعبكم وحنا دلله هاي إذنكم واحد برتان شيء قال لي هذا السياسة ده شيء قال لي هذا الديمقراطية ده شيء قال لي هذا مركا عاد من السوشيال ميديا ده وحلا استعماله ومدلله بقفله وحفي عم أذوق مركا شخصي تاي قفك أولالاتي أياكو كلا رأي دوانان كرتان حسبيضا لكن عيدا إيا أفلقاد دا إيا مشرحين تشرحان إنا عيدان وأفلقاد ديسان وكلا حكتيستان حرام ويان حسبي كستا أو قبصدا وحويان كدالك السومالي اللي مصوبحيا إيا وح بدليا إيا وح سمينيا مركا وحان ليا حسبيقا iyo dadka soo baxaya imika caaysan waa dadka noqon doona Britoola kuwa wadankan hogaaminaya marka Soomaalidu waxay tiraahdaa afkaaga xumaaday colaadna waxba kaaga ma taro nabadna uu ka fogeeyaa shacabkana waxaan leeyahay siyaasaddu waa taageero muusan taageero buuxda inaad bixiso maaha laakiin inaad caay samayso inaad aflagaad samayso wabillahi tawfiiq